Haatana waxaanu soo gaarnay xubintii baro xilligan idin la wadaagi jirnay. Waxaanu idin haynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya soo noqday xoghayihii ururkii leegada ee go'aamiyadoonka Soomaaliyeed sidoo kale ahaa siyaasi iyo diblomaasi Soomaaliyeed intii u dhaxaysay 1924 ilaa 2014 waa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen taariikh nololeedkiisii iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray xilligii uu noolaa inoo soo jeedin doona maxamed faarax ciise gaashaan oo inta badan inoo soo jeediya xubinta baraha ligaaga ee barnaamijka tabiyaha. bismillahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalama. dhegeystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka tabiyaha telefishinka puntland gaar ahaan xubintiisa baraha ligaaga kusoo dhowaada barnaamijkan oo aynu maanta ku falanqeyneyno taariikhdii dhalashada allah u naxariistee cabdirasaaq xaaji xuseen. haliyey cabdirasaaq xaaji xuseen wuxuu ku dhashay 1924 magaalo madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo. shaqadiisana waxay siyaasi kusoo dhex jiray 40 sano oo dhowdhow. sooyaalka taariikhdiisoo koobanna waa sida tan. cabdirasaaq xaaji xuseen wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii labaad ee Soomaaliya gobonimada kadib isagoo bedelay ra-iisul wasaarihii koowaad cabdirashiid cali sharmaarke. waa siyaasi saameyn weyn ku lahaa dalka waxaana uu 35 sano kusoo jiray shaqada u khidmeynta dowladnimada Soomaaliya oo uu ka qaatay dowr fiican laga soo bilaabo xorriyad gaarsiintii Soomaaliya ilaa markii uu xukunkii dalku u gacan galay ciidamada qalabka sida. cabdirasaaq waxa uu 1930 ilaa 1944 wax ku bartay malcamad oo aabihiis bare ka ahaa halkaas oo uu ka dhigtay qur-aanka kariimka ah iyo aqoonta kale ee aan nidaamiga ahayn. cabdirasaaq waxa uu leeyahay taariikh fog oo 1944 ilaa 1969 ku xadidan wuxuuna ahaa xubin ka tirsan naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth Club oo markii dambe loo bedelay xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth League ama la Lega dei Giovani Somali. Soomaaliduna usoo gaabsan jirtay leegada 1955 ilaa 1960 waxa uu ahaa xogayaha guud ee ururka xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed SYL halka uu 1960 ilaa 1969 uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. 1960 ilaa 1962 waa xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya. 1962 iyo 1964 wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud iyo isgaarsiinta ee Soomaaliya. 1964 ilaa 1967 isaga ayaa noqday ra-iisul wasaarihii labaad ee Soomaaliya isagoo bedelay Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke allah u naxariiste. 1969 Oktoobar taladii dalka iyo xukunkii waxaa la wareegay ciidamada qalabka sida oo hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre. markaana cabdirasaaq xaaji xuseen wuxuu ka mid noqday siyaasiyiintii dalka joogtay oo markaa ciidamadii qalabka sida ee xukunka la wareegay ay afgooyo ku xireen. hase yeeshee markii la soo daayay kadib 1974 ilaa 1979 waxaa loo magacaabay oo uu ahaa wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay. 2006 ilaa 2009 wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta aad u mucaaridsan soo gelitaankii ciidamada Ethiopia ay dalka Soomaaliya soo galeen. cabdirasaaq xaaji xuseen wuxuu ku tilmaanaa mas-uul waxqabad leh daacad ah wadani ah aad u necab musuqmaasuqa isla markaasna cadaalad wax ku maamula. xilligii uu xilka hayay wuxuu soo rogay oo laga hayaa erayo halkudhegyo ah oo ay murtiyo ku dheehan tahay sida karti iyo hufnaan. ninkii shilin ku maqnaado isaguna maqan iyo wixii la mid ah. wuxuu aad u ilaalin jiray madaxda kalena ku kormeeri jiray dhowrista saacadaha shaqada dowladda. taasi waxay keentay
inuu qof kasta oo shaqaalo ah uu shaqadiisa saacadihiisa ama saacaddiisa uu ugu yaraan rubu saac hormariyo si uusan marna shaqadiisa uga daahin. wuxuu shaqooyinkii ka eriyey dad badan oo awal shaqada dowladda lagu qoray iyadoo la tixgelinayo kaalintii ay ku lahaayeen halgankii loo soo galay gobonnimada dalka hooyo. ra-iisul wasaare cabdirasaaq wuxuu yidhi shaqada dowladdu aqoon waayo aragnimo iyo karti lagu wado ayay u baahan tahay. dadkeenna soo halgamay oo aan intaas midna lahayn ma wadi karayaan shaqadii looga baahnaa. saas daraaddeed waxaa habboon in si kale loo daryeelo shaqaale dowladeedsa ma noqon karaan. saas darteed dadkii sidaas shaqada looga saaray ee uu ka eriyey wuxuu ku bilaabay walaalkiis cabdiqafaar xaaji xuseen. taasina cadaaladnimadiisii ayay tusaale cad u tahay. warqad baa la siin jiray qofka la yidhaahdo buusta roose, micnadii baqshad cad, baqshad guduudan. baqshadaa guduud hadday kuu timaado micnadii shaqadii dibadda ka tahay baa loo fasirtay. 20kii sano ee noloshiisa ugu dambeeyey cabdirasaaq xaaji xuseen allah u naxariistay wuxuu ku noolaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo uu aada u jeclaa ugana dhigtay dalkiisii labaad. allah u naxariistay ra-iisul wasaare cabdirasaaq wuxuu 1 febraayo 2014 ku geeriyooday magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka. hase yeeshee meydkiisii marxuumka waxaa loo soo qaaday caasimadda soomaaliya ee muqdisho halkaas oo aas qaran loogu sameeyey iyadoo lagu ag-aasay saaxiibkiis madaxweynihii koowaad ee soomaaliya aadan cabdulle cusmaan aadan cadde iyo marwadiisii caashe muuse mataan. ilaah kulligood jannadii firdowsa ha ka waraabiyo. dhegeystayaal barnaamijkeennii baro halyeygaaga caawa intaasaynu ku soo koobaynaa. ilaa iyo kulanti dambe nabadgelyo. intaasi haddii aanu kaga soo laabano xubinta baro ee barnaamijka tibyaha TV-ga oo inoo soo jeedinayay maxamed ciise faarax gaashaan, waxaanu ku baranaynay caawa cabdirasaaq xaaji xuseen oo in badan xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya, gaar ahaan ra-iisul wasaarihii Soomaaliya allah u naxariistay.